waxaan halkan maanta isugu ku yeedhay inaan ka hadlo hadalla aan ku arkayay muxuu ahaa ku qoraa jiraadka qaarkood olaha Somaliland iyada sahashaba muxuu ahaa waxaan leeyahay taariifta waxaan filayaa inay wada ogsoon tihiin in muddo dheer oo imka dhowr markii horena sanadaba ahayd imkana ilaa dhowrkii bilood oo dambeeyay ahayd inaan shirar ku wada jiray dalka Itoobiya ay xiriirayeen ama ay wada shirayeen gobolada Somaliland iyo kuwa Itoobiya gaar ahaan kuwa kililka ee iska soo horjeeda boorama lagu qabtay laba gobol iyo laba gobol baa ku shiray Gabiley baa lagu qabtay laba gobol iyo laba gobol baa ku shiray maanta shir baa ka socda dhagax buur laba gobol iyo laba gobol baa ku shiraya waxa ay shirkaas oo dhamay ujeedadeedu waxa weeyaan sidii mashkiladan aafadan adduunka oo dhan saameysay ee la yiraahdo taariifta loo qodobna kolba waxba iska aawan oo jira adduunka maanta meel aan wax tahriib la yiraahdaa markaad badda cas iyo badda cad labadaba waa Mediterranean Sea iyo Red Sea labadaa waxa haysta for the last say muxuu ahaa ugu yaraan 3 sano 4 sano u dambeeyay waxa iskaga gooshaa waa tahriibiyaal dawladdu in badan bay isku dayeen inay aafadaasi halka ay ka bilaabmayso ogaato oo cid waxaan ku jirta ay ogaato ay in badan isku dayeen nimanka reer Muqdisho waliba gaar ahaan ninka immigration-ka muxuu ahaa koonfur Soomaaliya haysta dhowr goor oo hadallo Somaliland ka sheegay xagga immigration-ka ka sheegay oo haddana ay raali gelin ka bixiyeen baa jirto ogtiin maantana waxa ka soo yeeray wuxuu ahaa immigration-ka waxa fiisada tahriibayaasha oo bixiya Somaliland wax la yaabo waa weydeen hawshii aanu ka galay tahriibayaasha Itoobiya ka imanaya iyo dadaalkaynu ka galay inuu ilaa hadda kaga jiro iyo intii aynu wareejinay inta ay yihiin Itoobiya lafteedu dadaalkay kaga jirtay waa ogtiin inaga kuwii xagga naga tagay qaar xidhaa jiray qaar ganaxdi baa jiray oo inoo soo celisay hase yeeshee waa aafaca muxuu ahaa saameysay caalamka waxaanu 3 bilood oo u dambeeyay Itoobiya ka wada shirayna inaanu hello waxaan wax sababaya waxaan la yiraahdo magafa iyo magacyada dee lagu sheego oo wax halbowle hawlaan tahriibta oo duufsanaya dhalinyartan iyo daayartan tahriibaysa waxaan isla meel dhignay in aanu halka ay sartu ka qurunto ruutiska tahriibta hello oo nimanka magafayaasha gacanta lagu soo dhigo hadday halkan joogaan iyo hadday Itoobiya joogaan isla qaadan Allahu naxariistay dhalinyartii dhimatay meesha ku leeyahay inaga u badnaayeen markii hore Liibiya xaggana la tagi jiray xaggana imka laga wareegay Masar oo kolkay xaggana ku yar adkaatay way dhulaan maamul jirin xaggana u wareegay waa markii ugu horeysay ee la inagu yiraahdo Masar baa cid ka tahriibtay oo ay ku dhimatay kolka qaar kood baa soonaysaa ma arrin siyaasadeed oo leeyna jeeda waxa wadkiin halka geeyay ka wareejay ilaa dawlad baa ka jirta adag oo jirta oo wax ka qaban karta muxuu ahaa tahriibta waxaan taasi u dirayaa dhammaan muxuu ahaa jamhuuriyadda Somaliland waxaan taasi u dirayaa ummadda reer Somaliland waxaan taasi u dirayaa ciddii iyo ehliyadii ay ka baxeen wadkaas hase yeeshee wadadaalayna waana ku jiray inaanu dalalka aynu xad ka leenahay tahriibayaashu aanay iskaga gudbin oo qabanno kolka dalalku ka heshiiyaan ee heshiis laga gaadhana way yaraanayaan muxuu ahaa hawsha socota waalidiinta iyo cid kasta oo arrinta danaynaysa waxaan leeyahay aynu door ka qaadano macallimiinta ku barayaasha jaamacadaha iyo kuwa iskuulada waxaan leeyahay casharadaad siinaysaan ka mid noqdaan ardaydu
tahriibtu inay tahay wax xun oo naftiisa halignimo ay tahay inay u sheegaan ay ku baraarujiyaan in seminar laga qabto lagu wacyigeliyo culimadu inay masaajidada ka kacaan oo nafti halignimadu ay ka isqarxintoo kale inay tahay u sheegaan ubadka halka waxa ay ka soo helayaan inay u dhaanta maanta dawladdu dhaanta dhalinyarada Soomaaliland kama dhalan baan u maleynayaa wasiiray ku leeyihiin agaasimayaal guud bay ku leeyihiin inta halka nagala shaqeysa raggii cirowga ahaa ee retire ku dhawaa waanu wada fadhiisinay ninka halkan soo fadhiya oo miidhan baa wasaaradda ka shaqeeya wasaaradda aanay ka shaqeyn ma jirto 500 kama yaraan u maanaya wasaaraddu sanadkan inta qaateen haddii oday cirow maanaan qaadan kanoo miidhan bay ahay daayartaasay ahay ugu weyn yahay 25 jirku dadalkaas loogu jiraa laakiin togba taagtiib rogooda wixii tamarteena inuu ka shaqeynaysiinayna shirkadaha waaweyn ee private ka waxaan muxuu faraya inay daayarta hawlgeliyaan oo ka shaqeysiyaan maan faraya waxaan idinku yeedhay bahda warbaahinta haddaati ina doorkiina idinkuna ka qaadataan oo wareysataan dadka ka hadlisaan oo khatarta arrintaasi leedahay u bayaamisaan oo soo hordhigtaan bari aan halkan TV-ga qaranka joogi jiray barnaamijyadu sii deyn jiray runtii ilaa waxaan keenay kuwii tahriibay iyo kuwii intay tahriibeen soo noqday iska soo noqday ku hungoobay qurbaha ee ogaaday inay halkani dhaanto ayaa ka hadlay oo sheegay oo la hadli jiray inamada soo celiya barnaamijyada caynkaas ka hadla fariintaasaan idinkanadii furaya ummadana waxaan leeyahay cid waliba doorka ay ku leedahay ka qaato waalidku doorku ku leeyahay ka qaato iskuulada iyo macallimiintu barayaashu doorka ay ku leeyihiin ka qaato booliiska iyo muxuu ahaa hay'adaha amniguna doorka ay leeyihiin bay qaadan doonaan haddii la yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wixii document haysta ee ku baxa document kolka ay qaadanayaan dhalinyartaas baasaboorka qaadanaya ee ay doonayaan fiisa in dawladda Itoobiya weydiistaan waxaan annaga waalidkiin soo kaxaystaan oo ahna waalidkood baan ka qoraa inuu ninkaas ama waxbarasho u tagayo ama caafimaad u tagayo ya ama fiisa loo soo diro rasmi ah oo meelbaa loo soo diro u tagayo dadka caynkaas way noo yimaadaan aqoonsi waxaanu siinaa aqoonsigoogi waanu u ogolaanaa saasay ku tagaan cidda tahriibay baxsanaysaa aabahoodna ma soo sheegaan irid dawladii fadhidana ma soo maraan jid waxay jidcadaas iska maraan hawdkaasay ka xulaan wixii la qaban karo in badan oo la soo celiyay oo hawdka laga soo qabto dadkii dhalay ay yiraahdeen caruurteeda halkaasay martay ya oo way tahriibay halay soo qabto oo akhritaanka la helay way jirtaa la hor joogsaday xadadkan xuduudaha laga gudbo ee booliis jooga ma maraan ni waaba tahriibe sidoo maray absolutely waruntii Turkiya ay tageen oo waxbarasho siisay war ma garatay waxa la wixii Soomaaliya ka tagay Soomaaliland ka tagay mid kama joogo iskuul kama dhigto halku waxa weeye wada jir looga shaqeeyo iyo dawladaha gobolka ka xiriira wada jirka laga shaqeynaa maxay tahay waa tan fariinta aan ka sheegay halkan ah waalidku inuu doorkiisa qaato oo inuu ilmihiisa ay rasiiday oo aanu magafaha lacag ugu dirin halka diri maayo deeq maayo war ma garatay ayaamo haysana uu sii dayn doona ha magafaha haysto halkaas iskaga oohinaya dabadna 10 kun baa laga daba diraya ha ka joojaan marka hore yaanu sahlin oo noorka yeesiin waa qodobka labaad barayaashu doorka waxa qaataan oo khatarta ay leedahay tahriibtu ha u sheegaan annaguna doorkaygaan qaadanaa waana la hadlaynaa wixii tamartaya ah aan xadka wax kaga qaban karana waa kaga qabanaynaa dawladaha aynu jaar karnaa waan ku sheegay waa tan aynu ka shiraynay imka nagu qaatay ilaa 3 bilood aan wadnay aynu doonayna inaan guntii u dhaadhacno oo aan soo qabanno ragga waxaan sahlaayay ee magacyada aynu ku sheegayna magafa iyo hebel aynu ku leenahay inaanu helno aad u mahadsantiin waxa jira arday scholarship oo Soomaaliland hesho ay jirto
ardayda laftooda qaybo ka mid waxay ka mid ahaayeen dadkan dowladda ugu dambeysay Suudaan iyo Turkiga waa arday reer Soomaaliland oo ka tagtay dowladda maxay idinka meegaan ardayda scholarship dibadda u dirtaan warday wax soo kororsadaan anagu lahayn inuu wax soo barto an markaas course loo dirayo milhiblaayo loo dirayo inuu ku inuu 10 soo qaato wax soo barto dalkiisa wax soo bartaan ayaan u diray uma aan diray inuu tahriibo waa fidno waa mashkiilad waa wax aan waa hawo socoto oo saameysay sanadahan adduunka oo in la socdo in la khatar la galo ummadii muxuu ka ciisay kolkol baa waxa si dabayl bayna martay ma maqashay waa dabayl adduunka ka taagan in kan u diray kooraskeen kunu ama qaahiro wax ka soo baro ama muxuu Ethiopia wax ka soo baro ama Suudaan wax ka soo baro markuu halka taga dambeeya yeelanaya ha isaga la dee kanu diray anu niri dalkaaga wax soo baro hooyada ay aabaha ku tabcana wax soo bare aayar iska dhaqaaqay isaga dee dambiga leh oo bilaa kala sideetadii markaan hadalka soo horno waxa weeyaan dabayl xun baa socota nin walba halkiisa ka dadaalaan leeyahay inanka xamar nagala soo hadlayna waxaan leeyahay fiiso uma bixinee digitalkaaga